dhammaantii waan hambaleynayaa qaranka meel walbay joogaanba golayaasha deegaanka soo baxay iyo meerada la doortoo dhan kuwa caasimadana maadaama ay dhow yihiin oo sarreeyo waa idin hambalyeynaya dhammaantiin maayarkiiyo meerku xigna doortona waa hambalyeynaya hal dardaaran baan idinkaga tegayaa sidaa oo wad socotaanee qurux badan oo qalbiga baa la rabaa waxaa laydinka rabaa magaalada caasimadda waxaa ku nool malyuun dhow 17 xilkeedii la saaray dadku way idiin codeeyeen way idiin soo daaleen rajo badan bay idinka qabaan oo ilaahay waxaan ka baryayaa inuu rajadaasi rumowdo oo idin yaraato dardaarankuna waxaa weeye xilkaa idin fura waxaa ku gaari kartaan guul idinkoo shaqeeya hab dowladeed hab midaysan iyo hab xafiis oo ay isugu dhantihiin khilaafkiinu ha ahaado meelaha doodaha dhexdiina ah iyo shirarkiina oo aan dibadda u bixin ceebaha dhacaa waxa weeye marka shir la galo waxaa ka timaadeen masalan xisbiye kala jaada degmooyin kala jaada marka atiin laakiin gola la yidhahdaa xisbigii iyo xaafadii way hadhayaan golihii midayntaati golihii hogaamintaati golihii waxqabadkaati haddii go-aankiina markaad doodaysaan uu dibadda u baxo oo tiraa wallahi anugu saasaano dadkii ninkii kale saaxiibkaa aad tirahdo eed saarto saasaano waa layga diiday halkaasaa laga jabaa mar haddii farna ha dheeraatee go-aan laysku raaco waa loo midaysay haddii kaa la waayo ma socon karaysaa hogaamintu waa intaa laba waxaa kaloo ku dardaaraya isu dulqaad midkiinba si gaar u soo koray waayo arrimo kala gaaraa leedihi aqoon kala gaaraa leedihi dabeecado kala gaaraa leedihi marka haddii adigu siaad waxu aragta lagula arki waayo dul qaadan weydo khilaaf baa imanaya hadduu khilaaf yimaado dadka u shaqayn maysaa oo meel baa ka dhacaysa marka labada qodob ee aan doonaya inaad dardaaran gutantaan waa midnimada oo qof baynu nahay haddaynu qof noqon weydo dadka faafici kara mayno wixii laydinka doonaya laydinka sugaya la socon mayso iyo haddaad go-aan gaadhaan doodiisii ilow haddaad doonta sax ahaw haddii lagaa bato babliga waa inaanu kaa helin adiga oole waarata wallahi saasa hadiya saasa haddii xantaa aad joojisaan oo mid ka ahataan hore u maraysaan ra'yigaa helaysaan resourcekaa helaysaan ixtiraamkaa helaysaan ducadaa helaysaan lakin hadduu dhexdin khilafada waa jiraysa marka waxaan rabaa 17 naas magaalada caasimadda ah inaa midaysaa tan ku celinaha waa taa dadka intaa le inaydaan naga gelgela qabo ee midaysaa meerkala doortay waanu kuu ducaynayna cod badan oo adduunka hore dhicin baa yaa laguu taageera rajo badan baa lagaa qabaa siyaasad nolosha runtiina waxaa weeye dowlad kasta iyo qof kastoo la doorto filashada expectation dadku waxay filayaan rajada ay filayaan ee deg dega ah iyo duruufaha dhabtaa isweydaarta taana ku xisaabtoma ha ku qalbi jabin ha ku daalina waxaa laidinka filayaa cirka ma noqonaysa cirka duruufa adag baynu leenahay lakiin haddaynu qorsheyno oonu mid noqono dadka waa ku raaligelina kolba intii la qabto baahi badan ayaa taala resourcekeenu waa koobkoobeyn hawlaheenu way badan yihiin dowlad ahaan waa idinla shaqaynayna waa idin tilmaamayna waa idin hagayna wasaaradda daakhiliya hawshaasay ku amran tahay bala saabka mid baynu ku wada shaqaynayna taasaa inoo dardaarana intaasaa idin halelayaa waana idin hambalyaynayaa dhammaantiinna aad iyo aad baan idinku hambalyaynaya idin ducaynayaa is ogolaanshaha isu dulqaadka isu tanaasulka nin kastaa intiina wuxuu doonaya in meer noqdo ama ku xigeen waa hubaal nin kastaaba ku soo ololeeyey nin kastaaba qalbigiisu ka sheegay orma socda anugu xubino waxaan u socdaa meyer laakiin dee run caqliyaddu sax maha marka waanu duruufaha qaadanaa markaa taana waan idinku ammaanaya isku dulqaateen dardaarankeenu waa intaa aad iyo aad baa mahadsan hawl wanaagsan sida iyo horumar iyo midnimo iyo hawl bani soogno wasalaamu calaykum waraxmatullah